waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto, waxay u daalaysaa inaad nasato, waxay hooyo u ooyeysaa, u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga. Video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray, ha ka qaadanin diintaada. taas diin ma aha, ha ka qaadanin diintaada halkaa. Facebook yaanu diin kuu noqonin, Google yaanu diin kuu noqonin, bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada, kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada. kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee, luqad walbay ku hadlayaan, luqadaadii hooyay ku hadlayaan. ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysaa. ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin. sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado, jaarka inuu inama si ahe ogow. waa wax jannada lagu galaya haddana, laakiin annaga waa isku caynaa, waa isbisiini. kii wadada qashin ka qaadayo, xaaqayo, nadiifinaya, waa isbisiini, shaqada isbisiini. rasuulka xalkeena keliya ma ahe salawaatullahi wasalaamu calayhi, annaga keliya arrinteena ma xalliye, xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sala allahu calayhi wasalam. waana dadka mu'miniinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan, maalinka qiyaamo rumaysan, oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay. alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali lagaa yahay, mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin? ilaa tigidkaagi waad wada tahay. ku salli, salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadee. ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan, waa midda keliya, dhaqanka keliya ee caalamka maanta xal u ah, oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta keliya xallin karaysa weeyaan. wallaahi haddaan si dhib u qaadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، إخوة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. walaalayal salaan diiran oo qaaliya kadib, madrasadu caawana waxay ina leedahay sharafkeenu waa islaamka. waa barnaamijyo taxane ah oo inoo socon doona intuu ilaahay doono. in badan ayaynu ka soo hadalay tacaaliim fara badan oo uu ina siinayo islaamkeenna. waxaana runtii ugu talagalay barnaamijkan in aan ku wacyigeliyo nafsadayda oo ay uga horeyso iyo nafsadaha walaalahay, dhalinta da-da yar ee imika usoo hana qaaday adduunka, doonaya in ay samaystaan mustaqbal islaami ah, mustaqbal ilaahay raalli ka yahay. wuxuuna qayb ka yahay barnaamijyo runtii taxane ah oo anugun aan go-aansaday inaan la dhex qaado dhalinyaradeenna, la dhex qaado oo aan fahamsiiyo, inaan u yara ifiyo, u bidhaamiyo, oo aan dhaho war niman yahow islaamkan la saaran yahay, islaamkan un lagu raran yahay, un la durayo ee la caynayo, waa dhiig miirad, waa kala geeye, waa maaragtay manaxariiste, waa cabsiye, waa terroriste, waa uma qalmo islaamkan, waa nacayb abuure. waxaan un la saaran yahay, war sida loo saaran yahay maahane, waa sida kale. islaamka waxaasoo dhan beri buu ka yahay. haddii dad la arkay isaga u nasab sheegta oo isku tilmaamaya muslimiin ay waxaasoo dhan sameeyeen, ma aha in islaamka la caay. waana laba shay oo runtii in la kala saaro u baahan. islaam iyo muslim waa laba shay in la kala saaro u baahan. islaamka miya? islaamka waa lama taabtaan weeyaan. islaamka waa unkan keliya ee ilaahay noo dooray diin ah adduun ilaa qiyaami saaca, iyo isaga agtiisa ina addiina cinda allahi alislaam. islaamku ceeb ma qabo walaalayaal.
islaamka ceeb ma qabo. islaamka waa waxa keliya ama xalka keliya ee maanta caalamka u baahan yahay. waa ka keliya oo insaanka ama basharka uu ka helayo wax walbo uu u baahdo. wax walbo uu u baahdo baahidiisa qaybaha kala duwan oo dhan bulshada. qaybaha kala duwan, kuwa nool kelimiya maya, bal kuwa dhintay, xataa kuwa dhintay. qofka markuu dhinto waxa weeyaan xaq buu leeyahay. xaqa uu leeyahay yaa siiyey? islaamkaa siiyey. in la dhaqo, in la aaso, in la kafano, in lagu tukado, in la aaso, in loo duceeyo, yaa siiyey xaqa. wuu dhintay, weli isagoo dhintay ayuu xaqa ku leeyahay. sharci ma jiraa sidaas oo kale caalamka walaalayaal ilaalinaya qofka nool iyo qofka dhintayba ilaalinaya oo weliba ka taxadaraya. xalay ugu dambeysay aynu ka hadlaynay islaamka iyo agoonka aynu ka hadlaynay. waxaa ka sii horeeyay islaamka iyo bii'ada. war islaam sidaa caawan waxa weeyaan waa islaamka iyo jaarka. dadaana waxba isu ahayn ayaa la isku xirayaa. islaamka wuxuu kala gooyay iska daayay dad aanan waxba isu ahayn baa la isku xiraya. dad aan wada dhalan buu isku xirayaa. dad kale fog buu isku xirayaa. bal dad dhintay iyo dad nool buu isku xirayaa islaamka. bal adduun iyo aakhiruu isku xirayaa islaamka. waa diinta keliya, diinta keliya, dastuurka keliya, dhaqanka keliya ee ilaaliya xaqa dadka madluumiinta ah, dadka aqaliyaadka ah, dadka liita ducafada ah laga taag roon yahay ilaaliyo weeyaan. waana diinta keliya ee abuura jacayl, ee abuurta jacayl, abuurta midnimo, abuurta horumar, abuurta wax walbo insaanku u baahan yahay. marka inaad sidaa u garano weeyaan. dadkan dajaaliinta kadaabiinta caynaya diinta midabkay doonaan ha lahaadaan, luqaday doonaanna ha ku hadlaanin, waa dad aanan diinta fahmin. iyo waxay isugu jiraan dad fahmay laakiin uurkooda uu ka guuxayo islaam nacayb, xasad iyo qil iyo xiqdi ay u qabaan ilaahay abuuray iyo rasuulkiisa iyo islaamka. waynu soo aragnay in badan. ilaahayna wuu nooga digay, soo ma garan. waxaa ugu horeeya ibliis baa ugu horeeya. ibliis goor buu bilaabay cadowtanimadiisa. dad baana maanta sidii ibliiska ka dheereeyey oo xagga fasahaadka kasii dheereeyey oo ibliisku uu arday u noqonaya. marka iska ilaaliya, aynu baranno diinteen, aynu fahanno. yayna noqonin samaacuuna lilkadib, kuwa beenta maqlid og, been maqlid og, dhegta un ay u taagan tahay. qiila waqaala wax aanan. ilaahay wuxuu leeyahay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. war mid kadaaba, faasiqa, mujrim weynaaday ah oo islaam nacayb uurkiisu ka buuxo oo xir shaydaanku soo dirsaday oo walba ha ka dhegaysanina warkiisa. war hubsada waxa laydinka sheegaya, hubsada waxa laga sheegaya diinteenna waa ceebka saliim. walaalayaal yayna ku dheeraanin walaalayaal. caawa waa islaamka iyo jaarka, islaamka iyo deriska siduu u qiimeeyey islaamkeena. bal fiiriyo walaalayaal, deriska waa ka uu dhahayo xaq fara badan buu deriska kale ku leeyahay. xabiibkaana ugu horeeyay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wax dhiirigeliya maadaama hogaamiyaha ama qaa'idka ummadan uu yahay. marka walaalayaal waa ka uu dhahayo xabiibkeenu sala allahu calayhi wasalam, maa zaala yuusinii jibriilu biljaari xataa danantu annahu sayuwarihuhu. kama zuulin jibriil inuu igu soo laalaabto oo uu igu celceliyo oo uu ii dardaarmo, igu adkeeyo jaarka, ilaa aan u maleeyo in uu jaarku dhaxlayo. siduu jibriil iigu soo noqnoqonayay oo uu igala hadlayay jaarka, oo uu u weyneynayay jaarka, oo uu u qadarinayay jaarka. markaan arkay waxaanba u maleeyay, waa isdhiibulaya rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh, waxaanba u maleeyey in jaarkiisa kale uu dhaxlayo. khalaas, bimacnaa labadii jaar waxayba noqdeenba family noqdeen, qaraabay noqdeen, bal family noqdeen, hal family ayay isku noqdeen oo isdhaxlaya. ilaa aan heerka u maleeyo jaarka siduu u dhow yahay arrintiisuna khatar u tahay. jibriil uu igu wadwaday, kama zuulin inuu igala dardaarmayo jaarka. allah, waa jaarka carabkeeni ka baxsan la maanta.
waa jaarka aan bilileqaysano, waa jaarka gacmaheenu ka baxsan laayihiin, waa jaarka aan jiingadoodii fiiqanay, jaarka aan xoolahoodii dhacnay, jaarka aan waalidkood dilnay, jaarka aan agoontii dhacnay, jaarka aan dhulkiisii dhacnay. imisa maanta dhul la kala dhacay oo un lagu durkay badadkii, lagu durkay xaggaa looga yimid, inta looga yimid ya. waa jaarka intaan dad kale u soo sheegan aan dhahna war dariskeena dahab baa yaalo, gaari baa yaalo, war lacag baa taale, kaalay u imaada, aniga wuu garanayaaye wuu ifahmayaaye, nimiya u imaada. odaga saacadda guriga waa ka maqan yahay, reerka saacadda waa jiifaan, saacaddaasa maaragtay firaaqo ah, saacadda ya jaarka aan sidaa u gallay, aan sidaa u khiyaanay weeyaan. war xaqa jaarka waa wax kale weeyaan, wallaahi waa wax kale. sida qaraabada oo kale ya, qaraabada lagu shabahay, qaraabada sida loo ixtiraamo, sida loo ziyaarto, sida loo ilaaliyo, sida loo xiriiriyo, sida maaragtay dee loo weyneey ayaa jaarkana loo weyneeyey. xaq uusan dadka kale ee kaa fog lahayn ayuu leeyahay. dembiga aad ka gashaa jaarkaaga, aada u dhegeysta dhalinyaro, dembiga aad ka gashaa jaarkaaga iyo khaladka iyo gefka aad ka gashaa waa ka weyn yahay kan aad ka gashaa kaa fog. ogaada taa. ixsaanka aad u samaysid jaarkaagana waa ka weyn yahay ixsaanka aad u samaysid kaa fog. la socdataa. dembiyada ugu waaweyn waxaa ka mid a jaarkaaga xaaskiisa isagoo maqan inaad u dhacdid oo aad ka zinaysatid ama cirdigeedii aad taabatid. haye gabdhihii jaarkaaga inaad u dhacdid sidoo kale ya, oo aad xumaysid. waa dembiyada ugu waaweyn. waa zinada ayaa kala weyn. zinada aad jaarkaaga ku samaysid way ka weyn tahay, aad bay uga weyn tahay zinada aad meel fog kusoo samaysid, iyadoo zinada sideedagoo fuxshi tahay iyo madmuum ay xun tahay. warjaarka waa wax kale. jibriil baa igu soo laalaabanaya, igu soo noqnoqonaya oo igala hadlaya jaarka ilaa aan u maleeyo inuu dhaxlayo. xadiidku waa bukhaari. waa ka haddana sidoo kale xadiid kaloo bukhaariya uu leeyahay xabiibkeena ku salli xabiibkaaga, gabadhaadan ku salli xabiibkaaga, wiilkan ku salliya ideelkiin sala allahu calayhi wasalam. waa cibaado weyn, salligiisa ku salliya. wallaahi laa yu'min 3 jeer buu ku celcelinaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam. wallaahi in aanu rumaynin, iimaankiisu taam inaanu ahayn, wallaahi inaanu iimaankiisu buuxin ayuu leeyahay xabiibka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh. markaasaa la yidhi qiila man yaa rasuula allah, waa kee kaa aad ku celcelisay ee aanan rumaynin ilaahay iyo maalinkaa dambe, waa kee? muxuu yidhi qaala alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu. laa ilaaha ila allah. ya waa kan uusan jaarkiisu ka magangelin shartiisa, kan aan shartiisa laga magangelin. carabkiisa jaarku aanu ka magangelin, gacantiisu aanu ka magangelin, bal indhihiisa aanu ka magangelin, jaasuusayo dhegihiisa aanay ka magangelin. ya warkan aan laga magangelin, af iyo adin aanu jaarku ka magangelin, kaa iimaankiisu taam ma aha, ilaahay iyo maalinka qiyaamaha ahna ma aanu rumaynin. war sharteenna ha laga nabad galo. hadda wadankeeni oo dhan waa wada jaar, guribu ku xiran yahay. haddii jaarkan uu jaarka kale magangeliyo, kan kale magangeliyo, kan kale uu ixsaan falo, waa intee ilaa iyo cirifka darafka kalaan ka baxeynaa soo maaha. wadan waxaan wada noqonaynaa qaatay tacliimaadkii diinta, wadan uu isu wada ixsaan falaya, wadan maaragtay ismagangelinaya, wadan aamin ah ayaan noqonaynaa, mutma'iniin annagoo ayaan noolaanaynaa soo maaha, annagoo xasiloon. raxmadii baa ilaahay noo soo daynaya markaa iyada ah. war jaarka hala ilaaliyo. jaarka wallaahi arrinkiisu arrin yar ma aha, ma fududa. dariska marka waxaa loo baahan yahay in gurigaagoo kale sidaad uga fikiraysid reerkaaga, in aad dariskaagana uga fikirtid. in badan baa islaamka tacaaliimtiisu ku badinayaa sida iyada ah. caawana qaar baan idinka maqashiinayaa. aniga jaar oo dhan ka hadli maayo, laakiin waxaan ka hadlayo waxa weeyaan in aan in yar un dhalinteena dadkaan un loo caayinayo islaamkoodii, shakiga laga gelinayo islaamkoodii, ya in yar inaan u bidhaamiyo un
inaanu islaamka sidaa loo sheegaya aanu ahayn ee uu ka duwan yahay aynu baranno. waa kana marka xabiibka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiis kale oo isna saxiixaynka ku sugan waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhiri falaa yu'di jaarah. yuusan dhibin qofkii alle iyo maalinka qiyaamo rumeeyey. lama dhihin kii rasuul rumeeyey, lama dhihin kii diin rumeeyey, lama dhihin kii maaragtay zaka rumeeyey, kii salaada rumeeyey, kii ixsaanka rumeeyey, kii xajka lama dhihin. waxaa la yihi ilaahay iyo maalinka qiyaame. insaanka sidiisuba ilaahay baa abuuray, ilaahay baa xaaladiisa la socda, wuuna dhimanayaa, ilaaha ayuu hortegayaa. goormuu hortegayaa? maalin la yidhaahdo maalinka qiyaame. marka maalinka iyo ilaaha maalinkaas kale maaliki yowmi ddiin qofkii labadaa isla rumeeyey oo aaminsan xisaab inay u dambeyso, laga xisaabin doono af iyo adin wuxuu qabtay laga xisaabin doono aaminsanow, jaarkaaga ha dhibin jaarkaaga. carabkaaga iyo gacantaada ka ilaali, u ilaali si ka ba-an, si ka daran, si ka adag, ya sida kuwa banaanka aada u ilaalisid, kuwa kaa fog sidaa u ilaalisid. jaarka xaaladiisu caadi ma aha wallahi. jaarka xaaladiisa, jaarka dariska aynu ilaalino. xadiis kaloo musliman waa ka haddana uu dhahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhiri falyuxsin ilaa jaarihi. qofkii haddana maalinka qiyaame iyo ilaahii maalinka qiyaame rumeeyow, ya jaarkiisa ha uu ixsaan sameeyo. dhowr shayba waa lagaa rabaa marka adiga. waxaa lagaa rabaa xumidaada iyo shartaada, bawaa'iqtaada, shartaada inaad ka reebatid, af iyo adinba inaad ka reebatid oo marnaba ayan gaarin. sida aduguba dee aada u jeceshahay in lagaa reebto, dadka carabkooda inaad ka magan geshid, dadka afkooda iyo adinkooda inaad ka magan geshid, sida aad adiguba u jeceshahay, ya in aad ula jeclaatid. marka dadku inay shartaada ka nabadgalaan, ixsaanna inaad u samaysid oo ay helaan wanaagaaga. xumaantaadana ka ilaali, wanaagaagana sii oo gaarsii oo ha ka helaana. intuba waa lagaa rabaa. eeg qofkii alle iyo qiyaamo rumeeyow, jaarka shartaada ha ka nabadgalo, ha dhibin. qofkii alle iyo qiyaamo rumeeyow, haddana maxaa la yihi jaarka uu ixsaan samee. labaduba wuu kugu leeyahay jaarka. ma helaan ixsaankeena, ma u ixsaan sameynaa, ixsaan ma u sameynaa jaarkeena. xumidu ma ka reebnaa, dhibkeena iyo aflagaadadeena, caydeena, gacanteena ma ka reebanaa jaarka oo ma ka nabadgalaan? waa maya, kama nabadgalaan. wallahi inaanay ka nabadgelin. sidaasay diinteena walaalayaal u macaan tahay. dariska aada iyo aad ayay diinteena uga taxadartay. rasuulkana sidoo kale, rasuulkeenana ku sali xabiibkaage sala allahu calayhi wasalam. si guud markuu ula hadlo dadka oo uu jaarka u sheego oo uu ku dhiirigeliyo in jaarka la karaameeyo, loo ixsaan falo, sharta laga dhowro, ayaa haddana keli ayuu ula hadlayaa. waad ogtihiin xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam inaanu ladi jirin indho muggood. waad garanaysaan maalinkii ay ku soo degatay yaa ayuha almudathir qum faandir, yaa ayuha almuzammil qum illayla ilaa qaliila. aayadahaas oo dhan istaag, kaa isduuduubayo istaag. waktigii la isduubayey, waktigii la gam'ayo, la hurdayey, la raaxaysanayey, dhammaa wuu dhammaaday. ummaddii waa baaba'san tahay. istaagoo dig, istaagoo maalinkiina dig, habeenkiina intaa istaagtid, yaa in yar maahane ilaahaga hor istaago, ma aragtahay, yaa oo qur'aanka akhri, ilaahaga caabud, oo istaag, oo rukuuc, oo sujuud, ducayso, gacmaha kor u taag. allahu akbar. ummadda ilaahay u bari. eeg aayadaha maalintii lagu soo dejiyey siduu u istaagay wuu ku dhintay. waa 23 sano ayuu taagnaa sala allahu calayh wasalam.
habeenkiina uu taagan yahay ilaa cagihiisu bararaan sala allahu calayh wasalam, maalinkiina uu ordaya war usha yaa ii qabtuu leeyahy, usha yaa ii qabta. quraysh way diiday yaa ii qabta inay qaataan dacwade, usha yaa ii qabta oo gurigiisa igeynaya aan qur-aankan diintan yaa nicmadan fadligan khayraadkan aan gurigiisa geeya, yaa usha ii qabta. allahu akbar. dhibaatadaasuu nala soo maray rasuulka salawatullahi wasalaamu calayhi, ma aanu ledin. ya waa ka xadiiskii kale haddana maalmihii hore aynu soo qaadanay waa ka u dhahayo xadiis saxiixa, kaana sala allahu calayhi wasalama idaa naama tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbuhu. haddii uu seexanayo uu hurdayo indhaha unbaa hurda, qalbigiisu wuu soo jeedaa. qalbiga aduu kaa fikiraya, qalbiga ummaduu ka fikiraya, qalbigan raciyaduu ka fikiraya, ya oo qalbigan jaarkuu ka fikiraya, qalbigan bii'ada sidii loo islaaxin lahaa buu ka fikiraya, qalbigan wuxuu ka fikirayaa caalamka sidii horumar loogu samayn lahaa, technology cusub loogu samayn lahaa, dadku say u horumari lahaayeen, adduunku u camiri lahaayeen oo wanaag ugu camiri lahaayeen, siday ugu shaqaysan lahaayeen aakhiradooda, badbaado inay badbaadaan buu la gami la'yahay qalbigan. qalbigan waa qalbi inaga murgaya inaga ilaa qiyaami saaca, ilaa qiyaami saaca annagu naga murgaya qalbigan. qalbigan waa qalbi soo jeedo weeyaan, laakiin annaga indha mugoodan seexanayna. mas-uul walboo aanu nahay, mas-uul walboo aan noqono waa un inta aan indhaha isaga qabanayn. qalbigana khalaas wuu dhimanayaa marba indhuhu hadday isku qabtaan, haddaan isku qabano qalbigeennina waa dhimanayaa. marka diinteena taa weeyaan walaalayaal, waa diin xabiibkii loo soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam, qalbigiisa uu soo jeedo weeyaan. waa kana haddana abaadar ayuu garabka intuu qabto ayuu xabiibka sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala sheekeysanayaa jaarkiisa ayuu kala hadlayaa. xadiiskana muslim ayaa soo saaray, waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam, yaa abaadar, wuxuu leeyahay abaadarow, haddii aad karisid maraq, haddii aad karisid badi biyihiisa badi, suugada aada u badi, wax yar un ha karinin. cad hilibaba haddaad haysid, xogo qudaara aada haysid badi, oo maraqa biyaha ah badi oo wixii aada isticmaashaan ee aada cuntaan maahane ugee, jaarkana ugee. sida aad reerka ugu qaybinaysid oo loogu gurayo, ilmuhu usoo fariisanayaan oo ay ugu talagalayaan, jaarkana siiyoo gaarsi ayuu leeyahay. allahu akbar. eeg raxiimka, eeg waa aabe, reerkiisii waa ka soo gudbay sala allahu calayhi wasalam. deriskii ayuu isku xirayaa oo wuxuu isku xiraya maqaanuun uu samaystaa maye ee waa islaamka lagu soo dejiyey ayaa sidaa amraaya in jaarka la karaameeyuu amrayaa. eeg jaararka dhexdooda naxariista uu dhigayo, xubbiga uu dhigayo, sida u midaynaya. eeg sidaa abaadarow reerkaaga aada u siinaysid maraqa u sii, intaad badisid u gur reerka, deriskana u guro siiyo u geeyo, ku farxaano maaragtaay ya kibistii canjeerada iyo malawaxa iyo maaragtaay dee jabaatiga ha ku cunaani, ugee maraqa. allahu akbar, allahu akbar. runtii waxaa uu isoo xasuusinayaa xadiiskan shariifka ah, hooyaday allah u naxariisto, allah u naxariisto, dembigeedana allah dhaafo. hooyo runtii way imtixaanayd beryihii dambe oo dhan, imtixaan ilaahay bay ku jirtay, aad bay runtii u xanuunsanayd. idinkuna waad u duceyseen, aad baan runtii idinkaga mahadinayaa. inta xanuunsan oo dhanna allaha caafiyo. hooyo intay noolayd, marka aan ka tago magaalo, inta badan reerku waan ka maqnaa, oo aan u imaado waa kusii talagelayaa, hadiyadaan sii qaadayaa, u badan nacnac iyo buskut iyo macmacaan xalwiyaad ayaan sii qaadayaa, bacyaal baan sii qaadayaa. sidaan u socdo hooyaan u geynayaa. hooyo mar alaale markaan u geeyo waan badinayaa, maxaa wacay hooyaan aqaanaa caadadeeda, hooyaan aqaanaa tabcigeeda iyo dabeecaddeeda. mar alaale markaan u geeyo ilmihii baa dee kusoo ordaya, reerka maaragtay walaal ay dhashay, walaal wixii baa kusoo ordaya. markaas leeda ukaadiya. xoolaha idinka keliya idinma uunan keenin, abtigiina idinka keliya idinma keenin, ukaadiya. xoolaha dad baa nala leh. wallaahi waa xusuustaa hadalka. ilaahu kuu naxariiso, ilaahu kuu naxariiso.
ilaahu ku naxariiso hooyo, ilaahu ku naxariiso. waxay leedahay dad baa idin la leh xoolaha, dad baa idin la leh u kaadiya abtigan idinka kaliya idinma keenin. allahu akbar. markaasay tirinaysaa, dariskay tirinaysaa, markaasay leedahay heblaayo iisoo eega ilmaheeda waa imis, heblaayo iisoo eega, hebel iisoo eega. intii jaarka ee dhoweed oo dhan bay soo tirinaysaa. markaasay kale xirxiraysaa, intay bac qaado ayay hooyo kale xirxiraysaa buskudkii. wallaahi inta ilmaha abtigaan u ahay ay siinayso, inta reerka ay siinayso in la eg bay dariska siinaysaa, ay u geynaysaa. allahu akbar. waa sidii laga raba jaarka weeyaan. maantay haysaa, maantay haysaa. ilaahu ixsaankaa ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin. sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado, jaarka in loogu ixsaan falo. reerka markaan u tago siday u farxayaan iyo ugu farxayaan ayaa dariska oo dhan u farxayaan. sidii iyagoo aabbahood yimid ayay u imanayaan hooyo. markaasaa la siinayaa wixii maaragtay yaallo dhan. waa ka abaadar uu leeyahay, yaa abaadar, waa uu xabiibkiisa ku dhahayo badi maraqa badi, waxa aad karinaysid badi, oo markaad badisid oo ay bislaadaan gaarsii, dariska gaarsii, oo jaarka gaarsii, oo maaragtay ugee uu leeyahay. laa ilaaha ila allah. waa ka eeg haddana gabdhaha uu ku dhahayo ka abaadar ayuu ahaa. gabdhihii oo dhan buu haddana la hadlayaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. wuxuu leeyahay yaa nisaa almuslimaat, yaa nisaa almuslimaat laa taxqirana jaaratun lijaaratihaa walow firsana shaatin. yaanay jaarad deris gabar, yaanay gabadha kale deriskeeda yaanay xaqirin, yaanay yasin, yaanay maaragtay halmaamin, yaanay halmaamin. ya walow firsani shaat. allaha ka yeela ciddi ariba allaha ka yeele, ama laf yar oo aan hilib lahayn ba allaha ka dhigay. bimacnaa wuxuu dhiirigelinayaa xabiibka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim in dariska uu dariska kale wax u geeyo, in dariska kale uu maaragtay hadiyad u geeyo. ha yaraysanina ayuu leeyahay waxa aad haysaan ee agtiina yaala, ha yaraysanina. ha dhihina war waxan yar ama xabadan timirta ah, koobkan shaaha ah, maraqan yar, cadkan yar, waxan yar miyaan daris dhan uga armay isoo nacaan, armay igu soo tuuraan, armay qaadan waayaan. war wax walba qalbiga ka fiican waxa aa haysid inaad la qaybsatid walaalaha dariskaaga, inaad la qaybsatid waa shay mamduuc, shay waxa waaye ilaahay ammaanay weeyaan, islaamkeenu ammaanay oo u booriyey weeyaan. yaanay jaarka kale yaanay yaraysanin ayuu leeyahay, yaanay yaraysanin walow wax yare ay haysaba, laf aan hilib lahayn ama wax yar allaha ka yeelay, yaanay ka yaraysanin ee ha u geyso, ha u geyso. badi baa la leeyahay maraqa. maaha marka daris kalena waxa uu igu sixrayaa inuu dhaho war daadiya, in la dhaho war naga celiima masaakiin baad noo malaysaan. war waxaan waa tacliim, waa qiyam islaami ah weeyaan. waxaan waa waxyaabaha jacaylka uu ka dhasho weeyaan. waxa darisyada waxay isu naceen waa maxay? waa wax isu geyn la-aanta, waa ixtiraam la-aanta, waa maaragtay wanaag ka shaqayn la-aanta, isxiriirin la-aanta weeyaan. daris agtaada degan oo 10 sano aadan la hadlin, haddaad maalin dambe marqaad u geysid iga fogow ku leeyahay, intaas ba imaadan keenaynin. maanta waxbaad ka wadataa, dan baad ka leedahay, maanta miyaad igu sixraysaa? wuu daadinaya. war dariska ha la ilaaliyo, dariska ha la ilaaliyo oo dariska loo ixsaan falo, dariska dhibka ha laga daayo. jirkeena af iyo adinba dariska ha ka magan galo, ha ka magan galo. islaamkeena na faraya, islaamkeena kaa weeyaan. gabar baa loo sheegayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam, tan ku soo khatimayahay. gabar baa loo sheegay, gabadhu waa salaad badan tahay, soom badan tahay, laakiin macni maalinkiina way soontaa, habeenkiina ilaahay bay u taagan tahay. laakiin jaarkeedu kama baxsado, waa bahal carab dheer, caraweelo ah weeyaan. carabkaasay ku dhibtaa jaarkeeda, qaylideeda lagama seexdo habeenkii, xanteeda lagama seexdo habeenkii, reerku kama nabadgalaan xanteeda. maantoo dhan dariskaas unbay maaragtay. gabadhaa muxuu ku yidhi cala tuul, kama una fikirin xataa xabiibka sal alla alay slam wuxuu yidhi hiya fi nnaar,
cadaabkay gelaysaa. oo salaada waxba u qaban mayso, qiyaamka ilaahay ay maanta dhan u hortaagan tahay waxba u qaban mayso. waxaasoo dhanba waxa waaye dariskii baa qaadanayo. ogow cibaadadan xataa haddii laga aqbalo cibaadadu wax waa taraysaa, laakiin iyadu uma taraysa, waxaa qaadanaya dariska qaadanaya. oo carabka aad dariska ku dhibaysid ciyaar baad mooday, camalkaagii u qaadanaya. yaad u shaqaynaysaa, isagaad u shaqaynaysaa, maadaama carabkaagii gacantaada dariska aad ku dhibtay, isagaad u shaqaynaysaa intaad nooshahay. hay oo maaragtay salaadaadii qaadanayo, soonkaagii qaadanayo, ixsaankaagii qaadanayo, acmaashaadii oo dhan, xajkaagii, wixii oo dhan, biri waalideynkaagii, wixii oo dhan buu qaadanaya. hay war ma insaankaad u shaqaynaysaa adigu? sheekh, insaanka ha naga nabad galo, carabkeena ha ka nabad galo. almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi. muslim ma noqonayna ilaa uu naga nabad galaan muslimiinta, bal dadka oo dhan ilaa ay naga nabad galaan. dadku hay naga nabad galaan. tu kaloo loo sheegay cagsigeeda, gabadhaas soom badan iyo salaad badan ma laha, laakiin dariskeeda wuu ka ammaan helaa. wuxuu yidhi hiya fi ljanna. allah, jannaday gelaysaa. marka walaalayaal, umuna caaisha radi allahu canha wa ardaaha way qaadatay arrinkan. saxaabadoo dhanna sidaasay ahaayeen. war haddii loo sheego war jaarka yaan la dhibin, maxay dhihi jireen? samcan wa taacan. war jaarka ha loo ixsaan falo, samcan wa taacan. war xijaabka ha la qaato, markiiba gab waa la xirina, waa la isku ridaya, samcan wa taacan. war khamriga ha la joojiyo, samcan wa taacan. war zinadu waa fuxshi, samcan wa taacan. ribada ha la joojiyo, samcan wa taacan. waa xaalada laga rabo qofka muslimka inuu ahaado daa'iman. umuna caaisha markay maqashay radia allahu canha wa ardaaha, jaarad yaanay jaarkeeda kale maaragtayay xaqirin, waxa yar ee ay hayso ha u geyso, markay maqashay si toosay waxay ugu tagtay xabiibka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi. maxay ku tiri? xadiiskan waa bukhaari, ogow. waxay ku tiri yaa rasuul allah, ina lii jaarayni fa ilaa ayihimaa uhdii. waxaan leeyahay laba jaar baan leeyahay rasuul allow, laba jaar ayaan leeyahay. yani tusaale ahaan, midna intuu iga jiraa, midna intuu iga jiraa. haye labada jaar keen u hibeeyaa wax? labaduba waxa aan haya haddayna deeqaynin, oo inaan kana u geeyo haddaysa deeqaynin, wuxuu wax yar yihiin, yaan u geeyaa labada jaar. ilaa iyo heerka ay sii weydiinaysa caaisha eeg radi allahu canha wa ardaaha. muxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, faqaala ilaa aqrabihimaa minki baaban. kan kuugu dhow albaabkiisa. dariska waa kala dhow yahay. kii mitir kusoo xiga adiga, kaasaa xaq leh. allahu akbar. waxay rabaan in ay ugu dhaqmaan diinta sida loogu sheego. xaggana ayaan u leexanin, xaggana ayaan u leexanin. waa sida laynaga doonayo inaga. marka aynu culimada rabbaaniyiinta wax ka dhagaysano, aynu maaragtay culimada taqaana diinta ee fahamsan ee dhexdhexaadka aynu wax ka dhagaysano. dajaaliin, kadaabiin, calmaaniyiin ah, qur'aaniyiin ah, laa diinayaal ah yaynaan waxba ka dhagaysanin. diintaadii oo ilxaad ah, weliba mulxidiin ah, diintaadii shaki kaa gelinayaan, diintaadii ku nacsiinayaan, ilaa marka dambe rasuulkaagii lagu nacsiiyo, bal ilaahay ku abuuray lagaa reebo oo lagaa fogeeyo lagaa nacsiiyo. habeenadan oo dhan duruustan sharafkeenu waa islaamka ee taxanaha ah ee aynu wadnay, camal walbo habeen walba aynu sheegeynay janno ina geynayay. waa diin janno socota ah weeyaan. afka haddaad kala qaadid jannaad ku tegaysaa tacaaliimteeda. haddaad adinka wax ka samaysid jannaad ku tegaysaa. waa diin janno, raxmad, naciim oo maaragta abadiyan oo iska socda weeyaan. diintan aad arkaysaa islaamka walaalayaal, waa jannadii oo ilaahay uu inoo soo saaray, ifka inoogu keenay weeyaan. yaynaan maqlin marka dajaaliinta warkooda, yaynaan maqlin dhaalimiinta warkooda, mujrimiinta warkooda, sufahada warkooda, dadkan laabta ka xanuunsan, qalbiyada jiran wata, uurka ka jiran, dadkan islaam nacaybka uurkoodu ka guuxayo, ama ha sheegtaana muslim ama ha sheegtaana wax kale. waxaad ogaataan walaalayaal, aynu iska ilaalino. dheg jalaq yaan loo siinin, yaan la dhegaysanin. diinteena diin sharaf badan weeyaan.
ina addiina cinda allahi alislaam tan ayaa dhammaystiran waata ilaahay u dhahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan maanta diintu waa idiin dhammaystiray raallina waa idinkaga noqday nicmadaydiina iyo fadligaygiina korkiinaan yeelay tan oo islaamka ah ayaan idinkaga raali noqday ina addiina cinda allahi alislaam waxaa uun ilaahay agtii dhaqan ka ah diin ka ah dastuur ka ah mabda' ka ah waa islaamka laynooga raaliga noqday islaamkan aynu baranno islaamkan aynu dhuuxno islaamkan wanaagiisa aynu qaadanno islaamkan aan si qurux badan ya siday dee salafkeenuba u soo wadeen aynu islaamkan u gudbino dadkan ayaynaan nacsiinin islaamkan aynu si qurux badan u barno islaamku wuu jirayaa ilaa qiyaami saaca walaalayaal dardaarankeenu ha ahaado diintan islaamka unbaa diin noo ah tan ayaanu ku noolaanaynaa tan ayaanu u noolaanaynaa tan ayaanu gaarsiinaynaa caalamka tan ayaanu ilaahay ka baryeynaa in uu nagu dilo oo uu inagu soo saaro annagoo muslimiin ah sidii rusushii oo dhan inaga horeeyey ay ilaahay uga baryi jireen habeen dambe intaynu isaga imanayno astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto waxay u daalaysaa inaad nasato waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxda adiga video iyo sawir la keenay oo internet iyo facebook lagu soo tuuray ha ka qaadanin diintaada taas diin ma aha ha ka qaadanin diintaada halkaa facebook yaanu diin kuu noqonin google yaanu diin kuu noqonin bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warahatul anbiyaa ka qaada kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee luqad walbay ku hadlayaan luqadaadii hooyay ku hadlayaan ka qaado culimada dhexdhexaadka maantay haysaa ilaahu ixsaankaa ha ka dhuminin hooyo inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado jaarka inama si ahay ogow ya waa wax jannada lagu galaya haddana laakiin annaga waa isku caynaa waa isbisiini kii wadada qashin ka qaadayo xaaqayo nadiifinaya waa isbisiini rasuulka xalkeena keliya ma ahe salawaatullahi wasalaamu calayhi annaga keliya arrinteena ma xalliye xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sala allahu calayhi wasalam waana dadka mu'miniinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan maalinka qiyaamo rumaysan oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali lagaa yahay mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaagi waad wada taaye ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadee ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa midda keliya dhaqanka keliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta keliya xallin karaysa weeyaan wallaahi haddaan si dhib u qaadan Uh-huh.